أيها الأحبة واحد قياستا markaad qofka xamanayso waa intii xasanaadka aad lahayd oo aad daadinayso intii ajarka lacagtaada ma qobi lahayd maya nina lacagta ma daadiyo oo lacagta iyo ajarka iyama qiimo badan lacagta waxaa laga yaabaa minis yar adduunka wax kuu fudaydiya inay noqoto ajarkuse adduunkana wuu fudaydiyaa aakhirana waa waxa keliya lagu badbaadayo sidaa awgeed buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi war caydha ma taqaanin atadruuna man ilmuflis buu nebigu yidhi caydha ma taqaanin qofka mufallaska qofka dee kacay ee caydhoobay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow caydha waxaanu u naqaanaa man laa dirhama lah walaa mataac ninkaan mood iyo nool toona haysanin baanu caydh u naqaanaa bay dhahay ninkaan mood iyo nool toona haysanin wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka caydha ama ninka kacay waxaa la yidhaahdaa waa ka aakhiro yimaada isagoo salaad soo sameeyey oo soo soomay oo zaka soo bixiyey soo arkaanulislaamkii maaha wuxuu la yimi soom iyo salaad iyo zakuu nabigu tilmaamaya laakiin wuxuu kaloo yimi buu nebigu leeyahay isagoo kaa caayay oo kaa qadfay oo kaa maagay oo kaa xoolihiisa cunay oo kaa dhiiggiisa wax ka daadiyey ayuu yimi dabeetana ajarkiisii baa dadka loo qaybiyaa buu nebigu leeyahay ila wax kaloo aad ku daynbaxdaa ma jiro maalku aakhiro waa intii ajar aad shaqaysatay waa salaadii waa sakadii waa soomkii waa intii xasanaadkii aad shaqaysatay dee daynna waa lagugu leeyahy daynbaxa aakhira marka waxa weeyaan waa ajarkaa la gurayaa hadduu dhammaado maxaa la yeelayaa markaa wuxuu nabigu tilmaamay qaar wuxoodiiba inay dhammaanayaan intii uu soo shaqaystay dad baa loo qaybiyey welina qaar kaloo wax ku leh baa taagan qaar kaloo weli wax ku leh ayaa taagan wuxuu nabigu tilmaamay kuwa kalea dembigoodii inuu dhigantaa ajarkuu kaa qaadan lahabaa laga soo qaadaya adigaa lagu saaraya isaga dembigiibaa laga nuqsaamiyey adigana wax laguu kordhiyey dunuubta kuu biirtay sayi-aadkii baa lagugu sii biiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaas ninkaabaa ah caydh haddaad rabto iyo nin khasaaray kaas baa ah ayuha alaxiba waxaynu u baahanay waxaanaynu saydhsaydhinayna waa xoolahaagiiyo inaad ilaaliso ceebaha dadka intaad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid qole heblaaya caynka iyo nin hebel baa saatan iyo bal adigu misbaadhbaadh imisaad ceeb leedahay imisaad nuqsaan leedahay imisaad adigu isbaadhbaadh anas ibnu malik baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhaha magaaladan madiinaan anigu soo gaadhay oo duul lam yakun lahum cuyuub aan ceeb lahayn ay deganaan jireen facaabu nnaas dabeetana dadkay markii dambe ceebeeyeen fasaarat lahum cuyuub buu yidhi waxaan soo gaadhay buu leeyahy aqwaaman kaanat lahum cuyuub qaar ceeb lahaa laakiin dadka iskaga aamusay oo aan dadka ceebtooda sheegin oo iyagana ceebtoodii la ilaabay buu yidhi ayuha alaxiba ay culammadu yidhaahdaan waxyaabaha waxa kan daawada u ah ee lagaga fogaado waxaa ka mid ah inaad meelaha goobaha fiican fadhiisatid dadka saalixiinta ah iyo dadka khayrka hadal haya aada la fadhiisatid oo iska daysid majaalista had iyo goor sharka lagu hayo iyo kuwa bataalinta ee camal kale ay meelahay fadhiistaan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa jaliiska saalixa iyo jaliiska suu-a waxa u dhexeeya faraqa u dhexeeya buu nebigu tilmaamaya waxaa fiican inaad akhridid taraajimta iyo taariikhda iyo manaaqibta dadkii saalixiinta ahaa iyo dhaqamadoodii